بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada xaaj official waxaa caawa ku eegi doonaa kulamada ugu dambeeya group A iyo group B tartan kala World Cup oo ka dhacayo dhankaas iyo Mareykanka. waxaa la soo gabagabay doonaa labadaas group B oo la dheeli doono insha Allah saacada markay tahay 4 saac habeenimo, halka group A asna la soo gabagabay doono xilliga salaada subax u dhow 4 habeenimo ama 10 saac habeenimo oo ilaa raal ka noqdo. haddii ku soo gaar muuqaalkan oo channelkana ku cusub yahay ama subscribe ku ahayn, waxaa ka codsanaya inaad subscribe noo dhahdo, like na saarto, siina share gareyso, asxaabtaana la wadaagto si muuqaalkan meel dheer oo u gaaro. waa kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan, codkaaga ayaa wax ku please subscribe noo saar. waa mahadsantihiin. markana kulamada lagu furi doono caawa Atletico Madrid iyo Botafogo ayaa wada ciyaari doonaan. labada naadi ayaan ku kala jiro kaalinta koowaad iyo kaalinta saddexaad. Atletico Madrid ayaan ku jirta kaalin saddexaad, Botafogo waxay ku jirtaa kaalin koowaad. Botafogo waxay leedahay 6 dhibic halka Atletico Madrid ay leedahay 3 dhibic. haddii labadooda caawa bareejo ay helaan, Atletico qalqil ay ku jirtaa. sidoo kale isla groupkaas waxaa dheeli doona naadi kubadda cagta PSG iyo naadiga Sunderland. PSG iyadana caawa haday badiso Atletico Madrid bareejo gasho, PSG ayaa soo baxayso. sidoo kale hadii Atletico Madrid ay badiso PSG bareejo gasho, PSG waa ku diisay khalaas. PSG Atletico ay goolal badan ku badiyaan ma sheegin, laakiin laba gool ay wadataa Botafogo, halka PSG hal gool dari hal gool ay wadato, Atleticana la mid tahay hal gool iyo hal gool dar ay wadato. caawa PSG iyo Atletico cid hari doonto, ma Champions ka hari doonto mise naadi Atletico Madrid oo cari Spain ka dheesho. groupkaas sidaas ayaa ugu baxeena. group waa indha adeeg rabo. sidoo kale waxaa jiro kulan ka tirsan isla koobka kala World Cup oo Mareykanka lagu dheela, Inter Miami iyo waxaa dheeli doona naadi kubadda cagta Palmeiras, kulan derbi ah. sidoo kale waxaa isla saacadaas dheeli doono Porto iyo Al Ahly oo ka socota dhankan Afrika. Palmeiras ayaan hogaaminayso groupka 4 dhibic ay leedahay, waxaa la hogaaminaya Inter Miami iyadana 4 dhibic leh, halka Porto kaalinta saddexaad ay ku jirto iyadoo 1 dhibic leh. Al Ahlyna 1 dhibic ay leedahay. waana kulanka ugu dambeeyay cidii laga badiyo waa ku deysay. haddii ay badiyaan ama bareejo ay galaan labadan midkooda, haday Porto badiso Palmeiras laga badiyo, gool fiican Porto ay ku badiso, sidaas ay ku soo baxaysaa. haddii Palmeiras iyo Inter Miami caawa ay bareejo galaan, sidaas Porto ay ku hareyso. Palmeiras iyo Inter Miami ayaa wareeg xig u gudbi doona haduu ilaa raal ka noqdo. haddii Inter Miami laga badiyo, Porto ay soo badiso, gool fiican ay ku badiso, Inter Miami qarka ayaa laga toori doonaa. Mamiza laga toori doonaa mise Porto bixi doonta. waan sugi doonaa caawa daqiiqeerka haduu ilaa raal ka noqdo. labadaas kulan ayaa la dheeli doonaa groupka A. sidoo kale 1 iyo 2 ku dari doonaa wararka suuqa kala iibsiga ee ugu dambeeyay. hambalyo taageerayaasha Liverpool waxaa haatan diyaarad soo raacay Milos Kerkez oo ka imaaday dhankan Bournemouth asigoo ku wajahan Marseille. markan Liverpool ayuu heshiis u siixayaa. waa sawirada ugu horeeyay ayaa hadda laga qaaday asigoo diyaarad saaran. saacadaha soo socdana wuxuu mari doonaa tijaabada caafimaad, kadibna wuu siixi doonaa maalinta Talaadada oo beri inoo aadan. 40 milyan ayaan heshiisku ku dhamaaday. markan waa isku dhamaatay. kale Paul Pogba ayaa asina qark u saaran ku beerista Monaco, asigoo qaab firi ugu beeri doono Monaco, naadiga ka dheesho cariga Faransa. gabagabay doonaa waxaa la saadaalinayaa in wareega xigo 16 tartanka kala World Cup la dheeli doono. isku aad muhiim ah inuu ka soo bixi doono, iyadoo la saadaalinayo Xavi Alonso iyo Pep Guardiola inay isku aadi doonaan wareega 16. waa saadaalin qura. saas ayaan la rajeynayaa insha Allah. big match ayaan qane waa la kala carara ama naadiyaal kale ka adag inay isku aadaan. waa laga yaabaa haddii PSG soo baxdo, naadiyaal badan Bayern Munich joogto. haddii aan la soo gaarto qeybaha ugu dambeeya muuqaalka, waxaa ka codsanaya inaad subscribe noo saarto, laagna dhahdo, siina share garas muuqaalka asxaabtaan labada rukumo. baliis channelka rukumo